dalkeenu aqoonsigii wadadii aqoonsiga ayuu qaaday shaqo badan baa socota insha Allah warar lagu farxana dhawaa wad maqli doontaan dadaalada wax ku oolka ay safiiradu ka wadaan dibadda gaar ahaan dalka Sweden oo guulo waaweyn ka soo hoydeen ayaan ugu tala galnay sidii dalkani qaramadu ka mid yahay adduunka maanta waa wadan la aqoonsan yahay sanu kordhin lahayn saaxiibo fara badan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland oo weheliyo wasiirka ciyaaraha Axmed Yaasiin Maxamed wasiir ku-xigeenka dawladaha hoose Axmed Cumar Xamarji iyo gudoomiye ku-xigeenka banka dhexe ee Soomaaliland Xamse Khayre ayaa munaasabad hadhimo sharafeeda u sameeyay safiirada dalalka Holland iyo Sweden u fadhiya Soomaaliland iyo sidoo kale Xamde Sheekh Cabdalle oo kamid ah haweenka firfircoon ee qurbo joogta ah sida aadka ugu dooda qadiyadda Soomaaliland iyo iibgeynteeda ugu horeyna waxa munaasabadani ka hadlay Xamse Khayre gudoomiye ku-xigeenka banka dhexe ee Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo aanu halkan ku sugannahay magaalada Hargeysa gaar ahaan hoteelka Barar waxaanu casuumad qadaa oo soo dhaweyn u sameynay safiirada Soomaaliland u fadhiya dalalka Sweden iyo Holland oo kala ah Sakariya Xasan Wacays oo Sweden ah iyo safiir Cali Maxamed Xaruuri iyo Xamde Sheekh Cabdalle oo iyaduna kamid ah hablaha firfircoon ee qurbo joogta ee Soomaaliland qadiyadeeda sida weyn ugu ololeeya waxa madashan ku soo gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Giire oo qadada sameeyay casuumada lahaa iyo wasiirkeena ciyaaraha wasiir Axmed Yaasiin wasiir ku-xigeenka dawladaha hoose Xamarji iyo aniga gudoomiye ku-xigeenkii banka markaa dadaalada wax ku oolka ay safiiradu ka wadaan dibadda gaar ahaan dalka Sweden oo guulo waaweyn ka soo hoydeen ayaan ugu tala galnay inaan uga mahad celino shaqada ay wadaan waxa isna halkaasi ka hadlay safiirka Sweden u fadhiya Soomaaliland Sakariya Xasan Wacays gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mudane Xamse wasiir ku-xigeenka dawladaha hoose wasiir Xamarji wasiirka dhalinyarada sportiga Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dhammaantiin aad iyo aad baan ka mahadnaqaynaa sida quruxda badan ee waliba runtii aan ku soo talagelin sharafta huwan iyo tixgelinta aad halka qadada nagu sameeyeen nagu maamusteen waxayno taasi dariiq u noqonaysaa amba nagu dhiirigelinaysaa inaan hawshaan qaranka iyo shacbiga Soomaaliland aan u hayno inaan halkii ka sii badino aad iyo aad baan runtii ayno tahay dhiirigelin waxaan dareemayaa in aan shaqada aanu hayno iyo in habeen iyo maalin u taaganahay in aanu tahay wax u qalma oo dadkaygu noo og yahay waxaan jecelahay kaliya in halkan shacbi weynaha Soomaaliland kala wadaago dalkeenu aqoonsigii wadadii aqoonsiga ayuu qaaday shaqo badan baa socota insha Allah warar lagu farxana dhawaa wad maqli doontaan ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Saciid Mira Faarax Giire wasiirka wasaaradda leerada ciyaaraha mudane Axmed Yaasiin Axmed Faarax wasiirka ku-xigeenka wasaaradda dawladaha hoose horumarinta magaalooyinka safiirada wadamada Sweden iyo Holland gudoomiyaha bankiga dhexe la taliyaha wasaaradda leerada ciyaaraha ee qaaradda Yurub Marwe Xamda mas'uuliyiinta kale ee aqoonyahanka halkan ku sugan dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan runtii sharaf weyn oo ah in halkan maanta ku soo dhaweyno safiirada wadamada Sweden iyo Holland iyo la taliya Xamda oo dhammaantood ah mas'uuliyiin qaran inaanu maanta halkan isku wareysano ku soo dhaweyno qada sharafeetan u sameeyno inagoo matalayna magacayaga iyo magaca golaha wakiilada iyo magaca dawladda dhammaantood runtii waxaanu galay marxalad cusub si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka safiirka wadanka Sweden oo bishii October keenay wafti aad miisaan culus leh oo maqaam sare leh golaha wakiilada ay la kulmeen xagga markay tageenna runtii bishii January xaflad weyn qabtay oo la balaaran ugu jira sida qadiyadan iyo jiritaanka wadankan aqoonsi lagu heli lahaa aad baan ugu mahadnaqayaa marar kale oo 18 May ay wasiirka ciyaaraha iyo kala qayb galeen wasiirka cadaaladdu runtii aad baan ugu mahadnaqayaa safiirka wadanka Sweden muddo dheer ka soo shaqeynayay sidoo kale safiir Cali Xaruuri oo isaguna ah safiirka wadanka Holland waan booqday runtii 2024 wadankana jaaliyad weyn reer Soomaaliland waa ku nool isagana wuxuu rajeenayaa hawsha hawl lamid ah inuu qabto kulankan wuxuu daaranayahay hadhimo sharafeed iyo soo dhaweyn iyo mahadnaq qofka muwaadinka ee xil haya ee qaran matalaya ee calanka qaranka sita
ee laga yaabo waliba duruufo adag inuu ku shaqeynayo markuu dalka hooyo yimaado in la soo dhaweeyo loo mahadnaqa waxay noqonaysaa in la dhiirigeliyo qarankiinu ogyahay waxaanu leenahay guud ahaan qarankiinu golaasha qaranku wadin ogyihiin wadin dhinac taaganahay wad barbar taaganahay waxaanu idin rajaynaynaa qarankan inaan insha Allah bidmilaahi kariimna hawlaha wadeena halkii ka sii wadaan qarankan waxaanu rajaynayaa horumar qof kasta oo muwaadin ah oo ama dalka jooga ama dawladda joogana waxa laga rabaa inuu halgan u galo si dalkani qaramadu kamid yahay adduunka maanta waa wadan la aqoonsan yahay سينو كردين لهاين صاحبة فربضان وعروتي أسوأ شيء دنيا حكومتنا إن وزارة الرماد دبد ذلك كذا إن حقول الله لابنه وإنه رادنا صاحبة فربضان دي لهاي رادو أنا أقول لك جلاهان كود ذا الرماد دبد يدمان جلا يا شيء ودنا حمدي أرونا يعني هبني ما أنا بلا شغال إنه حكومتها دي لهاي رادو هذه أدبوا ما سنتين